magaalada Laascaanood waxaa maalmihii la soo dhaafay ka socday diiwaangelinta doorashooyinka qaranka ee Sohdimaha iyadoona ay isdiiwaangeliyeen bulsho aad u tiro badan waxaa tan ugu ku ah maalmihii la soo dhaafay in habeenimada halkan la iska diiwaangeliyo iyadoona seejooyin badan magaalada ay guddiga doorashooyinka qaranka ee Sohdimuhu geeyeen si habeennimadii la isu diiwaangeliyo sida aanu ka wareysanay guddiga doorashooyinka qaranka ee Sohdimuhu waxay noo sheegeen habeennimadii in bulshada isdiiwaangelisa ay ka tiro badan tahay kuwa maalinimada isdiiwaangeliya waa u mahadcelinayaa saxaafadda nagu soo booqatay goob ka mid ah goobaha diiwaangelinta oo xilli habeen shaqeynaysa habeenkii 10aad magaalada Laascaanood waxaa ka socda diiwaangelinta codbixiyaasha oo si habsami leh u socda dadku si wacan bay isu diiwaangelinayaan hawlwadeenada ka shaqeynaya diiwaangelinta waa uga mahadcelinaynaa sida nafhuurnimada leh ay ugu adeegayaan bulshadooda habeen iyo maalinba iyagoo u heelan inay sida ugu wanaagsan ugu shaqeeyaan sidoo kale bulshada waxaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay noola shaqeynayaan ay isu diiwaangelinayaan waxaan halkan la wadaagayaa fariin ah bulshada inay isdiiwaangeliyaan muwaadin codkaagu xaq dastuuri oo leedahay fursadaas inaad ka faa'iidaystaa waa muhiim halkan waa suuqa wadacda ama meesha lagu iibiyo hilibka iyo khudaarta halkan maanta waxaan ka daahfurnay seejo guuraysa oo warwareegaysa si aan u diiwaangelino maamooyinka aan fursad u heli karin inay yimaadaan goobaha diiwaangelinta dadkuna aad iyo aad noo soo dhaweeyeen waxaa muuqata rabitaan badan oo ay rabaan dadku inay isdiiwaangeliyaan runtii waxa weeyaan waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha iyo howlwadeenada kala duwan ee diiwaangelinta oo iyagu mar walba u heelan inay qabtaan shaqooyin dheeraada xilliyo dheeraada bulshada aanu iyagana mikrofoonka warbaahinta qaranka la dhaca qaadnay ayaa dhinkooda nooga warbixiyay aragtidooda ku aadan sida shaqadu u socoto guddiga komishanka diiwaangelinta hadda xilligan aan joogno waa 7:10 daqiiqo habeenimo dabcan waxa laga yaabaa ilaa 10 habeenimo inay gaarsiiyaan shaqada sida ay u wadaan waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay u shaqeynayaan runtii kartida iyo aqoonta iyo dadaalka ay wadaan waa uga mahadnaqanaa shaqada ay wadaan runtii waxaan leenahay jazaakumullahu alkhayr aljazaa waxa lagu jiraa iyadoo xilli habeena diiwaangelintii ka socotay maamul goboleedka Waqooyi Bari dadku si habsami oo fiican oo qurux badan isku diiwaangelinayaan iyadoo aan u mahadcelinayno booliska sida quruxda badan nabadgelyada u sugayaan habeen iyo maalinba ma sha Allah aad baan ugu mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan dadka u soo jeedinaynaa maamulka Waqooyi Bari gaar ahaan caasimadda inay dadku is diiwaangeliyaan oo kaarka qaataan kaarkaas inay qaataan oo is diiwaangeliyaan kaarkooda iyaga waxaan ku dooran karaa laguna dooran karaa ونجيب عبد الله warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Laascaanood